dhegaystayaal ku soo dhowaada taxanaheennii sheeko oon uga hadlaynay taariikhdii caaqil siyaad iyo qisadii mag ari. Waxaa jirtay in uu dagaal dhex maray beesha uu siyaad ka dhashay iyo beel kale. Dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay sida caadada Soomaalidu ahayd ama hadda tahayba. Markii gogashii heshiisiinta la isugu yimid ayaa la xisaabtamay oo dhimashadii la isu tirsaday. Beeshii siyaad ayaa 2 nin la dheeraaday oo diyadoodii lagu yeeshay. Inkastoo waqtiga hadda la joogo diyada lacag lagu bixiyo, xilliga qisadani dhacday geel ayaa lagu bixin jiray diyada, lacagna lamaba aqoon. Subaxii dambe ayaa siyaad diyadii ari u keenay, dadkii oo dhammina ay wada fajaceen. Filan waana ku noqotay falka uu ku kacay siyaad daryadhoobe. Sida la wada ogsoon yahay, garta Soomaalidu waa mid furan oo waxaa ka soo qayb gala dadka oo dhan si loo ogaado waxa lagu heshiiyey iyo inay raalli ka yihiin labada dhinac ee la dhexdhexaadinayo. Maalintaana waxaa gogasha joogay qabiilo kale oo Soomaali ah si ay uga markhaati noqdaan heshiiskaas. Dadkii oo dhan ayaa weydiiyey siyaad sababta uu ari diyada ugu bixinayo, maadaama uu dhaqanku ahaa geel in lagu bixiyo. Siyaad oo ku adkaystay inuu arigu geela ka wanaagsan yahay kana manaafacaad badan yahay ayaa waxa uu ku qeexay arigii sidaan: 2 ragga ayay la wadaagtaa, 2 dumarka, 2 geela, 2 fardaha, 2 lo'da, 2 way sii dheer tahay ayuu yidhi. Dadkii ayaa weydiiyey siyaad inuu u faahfaahiyo wixii uu tiriyey oo dhan. Siyaad sida la sheegaba dan ayuu ka lahaa diyada ariga lagu bixiyey, waxaana ka go'nayd in uu qanciyo reerihii diyada ku lahaa iyo beeshii uu ka dhashay oo aan ku faraxsanayn ficilka uu muujiyey siyaad. Wuxuuna ku bilaabay faahfaahintiisii sidaan: 2 ragga ayay la wadaagtaa oo waa garka iyo reenka, 2 dumarka ayay la wadaagtaa oo waa labaca iyo laabnugeylka, 2 geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qaroomaysiga, 2 fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gaalibka, 2 lo'da ayay la wadaagtaa oo waa qoobka iyo geeska. Siyaad wuxuu ku soo gabagabeeyey labadii danta uu ka lahaa oo wuxuu yidhi: 2na waa ay dheer tahoo ayadoo 2 jir ah ayay 2 qodxood dhexdood iska saddaa, 2 jirna way kaa seexisaa oo way kaa dharjisaa. Dadkii oo dhammi way garowsadeen hadalladii siyaad, reerihii diyada ariga lagu siiyeyna waa ay aqbaleen. Halkaas ayaana lagu heshiiyey oo gartii ku xirantay. Siyaadna intaa kuma ekayne wuxuu yidhi hadal kale oo taariikhda galay ilaa iyo maantana mahmaahda Soomaalida ku jira. Wuxuuna yidhi: geel iyo wixii gooya waxba isma gaadha dhaamaan. Inkastoo dadka geela dhaqda ay ku culus tahay in arigu geela ka wanaagsan yahay, haddana waxaa halkaa ka cad in beeshii siyaad ari ku bixiyeen diyadii iyagoo awood u lahaa in ay ku bixiyaan geel. Maalintaa waxaa taariikhda dhaqanka Soomaalida galay hadallo iyo arrimo dhowr ah oo ka dhacay gogashaas, waxaana goobtii ama geedkii garta loo bixiyey ilaa haddana loo yaqaan mag arile. Dhegaystayaal, waa noo qaybteenna xigta iyo taariikhdii caaqil siyaad daryadhoobe.